السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين walaalay soo dhawaada waxay la soo xidhiidhay nin dhalinyaro ah oo jecel inuu bilaabo ganacsiyada beeraha ama wax soo saarka inuu ka shaqaysto balse wax lacag aan haysan oo $0 ah kaasoo isoo weydiiyey bal qaab uu u hirgelin karo ama se uu bilaabi karo beer uu wax kala soo baxo hadda walaalay maanta muuqaalkan waxaan rabaa dhalinyaro badan iyo dad badan aan dakhli haysan oo maanta $500 ama $1,000 oo kale aan mashruuc ku bilaabi karin inaan halkan fikrad kula wadaago ay beerahana ay haysan karaan inta walaalay markaan ka nimaadno fikradda koodan halkan in kula wadaagayo oo adoon lacag haysan aad uga shaqaysan kartid beer ama wax soo saar aad lacag uga sameyn kartid waxa weeye qofka dhalinyarada ah ee aan dhaqaalaha haysan in uu waqti badan huro oo waqti badan uu bixiyo oo cilmiga beeraha culumta beeraha iyo wax soo saarka uu aad isu baro waxaa ku jirta casharo badan internetka maanta YouTube-ka buugaag badan ayaa jira waxaa jirta koorsyo badan oo bilaasha oo aad ka baran kartid agronomistaha ama cilmiyada la xidhiidha wax soo saarka dalaga ciidda waraabka la dagaalanka cayayaanka nafaqaynta dhirta maxay ahayday ciidda sida wax loo kala bedbedelo crop rotationka علوم بدن وحقي بيرها الله حديدا أياد ما أنت سيف فضود أدوغا بدن برانكرتا أونلاين كواس أو داد كان أسو كردينيا إني وحسو صار بدن أي سميان مركا علميغا مركا أدبرتيد سيدي وحالله بيريي سيدي دالغا ما أركتي لون فقينيي سيدي وحسو صار كاللو كردينيي سيدي عيدا بيرتا لو ديارينيي هاببكا وانا سنة لو ورابين كارو وحيالاهاس أوردن marka aad isbartid oo waqti badan aad gelisid oo YouTube-ka aad ka baratid koorasyada aad qaadatid online-ka free-ga ku jira sidoo kale buugaag badan baa jirta PDF yaa jira waxyaalo badan ayaad internetka maanta ka heli kartaa cilmigaas qofka markuu si fiican u barto waxaa jirta dad badan oo leh beerihii oo leh ceelashii oo leh ma aragtay meeshii wax lagu beeri lahaa wax laga soo saari lahaa balse u baahan qof aqoontii beeraha aqoon fiican u leh iyagana wax soo saar wanaagsan u sameyn kara dadkaas marka walaalay waxa sameyn kartaa inaad cilmigaaga aad share kula kashid oo aad marka adigu dalagyadii kala duwan aad u beertid beerta nafaqadeedii aad dejisid cayayaankii aad ka daawaysid ciidii aad maartay iyo nafaqadeeda iyo wax soo saarkeeda iyo taranteeda aad wanaajisid waxyaalahaas oo dhan marka wax gali kartaa share ah tusaale ahaan beertana wax ka soo saaraya adiguna beerta ayaad leedahay waxaan markaa soo saarno boqolkiiba 25 hadba waxaan ku heshiino ayaan faa'iidada yeelanaya taasna waa mid dad badan oo dhalinyaro aqoonta beeraha leh ay maanta beera badan ku maamulaan oo wax soo saarka ay percentage ku leeyihiin hadaday cilmigaaga ayaa ku goynaya in dalaga beerta ka soo go'a aad share ku yeelatid adiga oo aan lacag ama wax dakhli ayna ka bixin inta walaalay marka laga yimaado fikradda koowaad aad $0 aad uga shaqo gali kartid beeraha waa inaad cilmi isbartid cilmigaagana aad ku bedelatid aad share ku bedelatid wasla markiiba sida aad hadhowto bari ka maalin beera badan aad kula shaqaysid adiguna aad ka noqotid milkiile qudaarta qayb kamid ah kula dakhliga ka soo baxaya fikradda labaad ee walaalay halkan aan kula wadaagayo ee dhalinyaro badan iyo dad badan ay ka shaqaysan karaan waa in aad baratid injineernimada beeraha agricultural engineering ama greenhouse engineering farsamada gacanta ee beeraha maanta waxyaalaha waddankeena loogu baahi badan yahay qof yacni garanaya sida drip irrigation loo dhigo oo aad ugu takhasusay waraabka beeraha iyo sida ma artay loo waraabin karo ay tuumbooyinkooda la isugu xidhiidhiyo biyaha loo gaarsiin karo system waraab oo fiican oo noocyada kala duwan furrow irrigation ha noqdo fertigation ha noqdo maxay ahayday kuwa korka lagaga buufiyo sprinkling ha noqdo qababka beeraha wax loo waraabiyo oo dhan oo injineernimada qaabka loo xidhayo oo kale ayaad baranaysaa sidoo kale greenhouse engineering sida guryaha aqal beereedka ama guryaha beeraha loo dhiso ee constructionkooda loo sameeyo ee korka looga dado ee qaybta culayska qudaarta qabanaysa loo sameeyo oo dabaysha looga ilaaliyo greenhouse engineer
ayaad noqon kartaa oo dadka greenhouse-yada dhisa oo kale ayaad 6 bilood ama sanad aad la shaqayn kartaa gacan yara aad u noqon kartaa beri ka maalin markaad khibradii heshid cilmigii injineernimadana aad heshid adiga ayaa kontaraagyadii qaadan kara oo ku shaqaysan kara waxaan garanaynaa dhalinyaro intaas oo kun oo dollar greenhouse engineering kaliya ka sameeya oo sanadkii 30 mashruuc 20 mashruuc 40 mashruuc oo kale xidha oo hirgeliya marka injineer beereed ayaad noqon kartaa oo siliga ama shabaga oo kale beeraha u xidhi kara waraabka u dhigi kara wax kasta injineernimo ah oo beertu u baahan tahay ayaad samaynaysaa oo baranaysaa online-kana waad iska bari kartaa sidoo kalena injineerada wax dhisa ee beeraha ka shaqeeya ayaa si bilaash oo internship ama voluntary ama tadaawacnimo ah oo kale aad ula shaqayn kartaa inaad cilmigii ka kabsanaysid kabacdi halkaa fursad shaqo oo kontaraaga ayaa kaaga soo bixi karta oo in badan ka dakhli roon xamaaliga suuqa ka jira waa fikradda labaad ee $0 aad uga shaqaysan kartid fikradda saddexaad ee walaalayaal halkan in kula wadaagayo waa in aad gaab maadaama aad beerihii dhex gashay beeraha qudaarta laga soo saaro oo kale iyo dadka qudaarta u baahan hadday noqoto suuqleyda sariibadaha dumarka qudaarta gada oo kale hadday noqoto hodheelada cuntada ama makhaayadaha cuntada oo kale ayaad market demand dadka u baahan qudaarta oo kale ayaad xidhiidhinaysaa wax soo saarka dadka beeraha ka soo saarayay iyo dadkii qudaartan u baahdaa waxaa jira rag badan oo dilaaliin ah oo qudaarta iibiya boqolkiiba 18 boqolkiiba 15 boqolkiiba 20 commissiona ayay qaataan qudaartaad u keenaysaa iyagaa iibinaya lacagta kuu soo dirayaan waxaan anigu waraystay nin ganacsiyada weyn ah oo ka bilaabay inuu makhaayad cunto ama hodheelo uu dhaho qudaarta idinka kooda isoo waca aniga ayaa idin keenaya wax nooliya ama xamaala ama waxba idinkama rabo anaa idin keenaya idinku kaliya iga iibsada marka siduu uu qudaarta ugu keenayay faa'iido uga helay markii dambe meherad ka sii samaystay marka kaliya waxa isku xidhiidhinaysaa dadkii qudaarta beeraha soo saarayay iyo dadkii iibsanayay ayaa isku xidhiidhinaysaa oo halkaas aad ka helaysid commission ama se dilaal aad ka helaysid oo kale waa fikradda saddexaad ee aad beeraha ku soo geli kartid oo aad kaga shaqaysan kartid fikradda afraad walaalayaal aad ku shaqaysan kartid oo kale waxaa ka mid ah dalagyo yaryar oo fudud ayaa jirta oo suuqa si joogta ah looga isticmaalo oo leafy greens afka qalaad lagu dhaho oo ah sida kamasar caleenta oo kale koostada ama spinachka oo kale saladka oo kale oo muddo bil 40 cisho meelaha ku diyaar garooba aan kaagana baahnayn nafaqayn badan iyo daawooyin badan iyo hawlo badanna aan kaaga baahnayn oo siidhkooduna aad u qiimo jaban yahay kuwaas oo kale internetka dheetada lacagta ku soo shubatid oo kale ayaad ku soo iibsan kartaa waxaad ku beeri kartaa guriga oo kale haddii qayb meel ciid ay ka bannaan tahay oo kale ayaad ku beeri kartaa ama beer oo kale beeraha inada ka hadlaynay oo kale ayaad ku soo beeran kartaa oo bil kasta intaasoo salara intaasoo kamasara intaasoo koosta ah qudaarta cagaaran ee fudud ee sida joogtada ah looga isticmaalo suuqa adeega ayaad keeni kartaa waa fikrad afaraad oo iyaduna dhaqaale yar ama bilaashba aad ku bilaabi kartid oo dadku ay ku shaqaysan karaan gaar ahaan dhalinyarada cash crop ayaa la dhahaa waa cashka yani dalaga cashka degdega laga helo ayay ka mid tahay marka fikraddaasi waa fikrad afaraad fikrado badan oo ilaa hadda hadday wadno 10 gaadhi kara ayaa jira laakiin wax kasta waxay ku xidhan yihiin dadaalka calafka oo kale ayaad baran kartaa sida loo beero cawsaska kala duwan ee xoolaha loo beero ayaad online-ka ka baran kartaa waxaad ka caawin kartaa qofka beerta iskale oo kale in aad yani isagana aad calaf aad u beertid uu soo gado qaybna uu ku siiyo cawska hadhowto iyo calafkaana aad ka sii iibisid sayladaha oo kale xoolaha fikrado badan ayaa jirta kaliya waxay kaaga baahan tahay inaad aqoontii yeelatid dadaalkiina iyo waqtigii aad gelisid intaa kaliya ayaa lacag aad u bedeli kartaa haddii aadan waqti xaadirkan aadan dhaqaale aad mashruuc beereed aad ku bilowdid aadan hayn marka walaalayaal dad badan oo dhalinyaro ayaa rabay muuqaalkan in insha Allah ku dhiirigelino fikradaha mid ka midna ay hirgeliyaan oo insha Allah ay meesha maartay ay wax soo saarkana wadanka qayb ay ka noqdaan baahi badan ayaa jirta xoolaheeni abaar iyo dalag la'aan iyo calaf la'aan ayaa haysta dadkeeni qudaarta
badi wayn soo dhoofsanaa import baynahay intaasoo $100 milyan ayaan qudaar ku keensanaa marka waxyaalahaas oo dhan waxa wadaniga ay dalka gudihiisa lagu soo saaro ayaa laga jecel yahay fursadda ay ka faa'iideysano aqoonteena iyo waqtigeena aan u bedelino oo share aan ku gallo intaasaan dhalinyarada maanta la wadaagi lahaa muuqaalkan waxaan jeclaan lahaa inaad la sii wadaagtid qof dhalinyaro ehelka ah oo aan camal hayn oo jeclaan lahaa inuu xun shaqeeyo oo arrimaha agri businesska uu soo galo